maanta waxaynu khulaasanaynaa film action fantasy oo 2020 soo baxay oo lagu magacaabo Samaritan. 15 sano ka hor waxa magaalo ku wada noolaa laba walaalo mataana ah oo dadka ka duwan, Samaritan iyo Nemesis. Waxay ahaayeen kuwo awood badan oo aanay xabadu karayn. habeenada kamid ah iyaga iyo waalidkood iyagoo sii seexanaya, dad ayaa albaabka ku xiray gurigoodina dab qabadsiiyay. waalidkood dabkii ayay ku dhinteen, laakiin labadii mataano way baxsadeen oo way ka badbaadeen. labada mataano ka weyn oo Samaritan wuxuu go'aan ku gaaray in awoodda uu leeyahay uu horo badbaadinta dadka. walaalkiisa ka yar ee Nemesisna waxaa ku jirtay rabitaan argoosi. wuxuu doonayay inuu dilo qof kasta oo mas'uul ka ah dhimashada waalidkii. wuxuu doonayay in adduunka oo dhan gacantiisa hoos tago oo uu xukumo. laakiin walaalkiisa ka weyn ee Samaritan wuxuu doonayay inuu walaalkii Nemesis isagu maamulo oo uu gacanta ku hayo. Nemesis wuxuu sameeyay dubbo xoog badan. dubbahanina waa shayga kaliya ee dili kara Samaritan iyo Nemesisba. maalin maalmaha kamid ah Nemesis ayaa qarxiyay warshad koronto. waxaanu weerar ku qaaday dad badan oo waxba galabsan. waxaanu uga dan lahaa rabshadan si markuu walaalkii Samaritan dadka ugu soo gurmado uu u qabto meeshana ugu dilo. waxaana halkaa ka bilaabmay dagaal adag oo u dhaxeeya labadii walaal. sidii u dagaalamayeen warshadii korontada ayaa si xun u qaraxday. labadoodina bartii ayay ku dhinteen. intaas waa sheekada hordhaca ee filimka. iminka waqtigan la joogo, wiilkan yar waxa lagu magacaabaa Sam. wuxuu kula nool yahay hooyadii gurigan yar. Sam wuxuu taageere weyn u yahay Samaritan, waxaanu sawiraa markasta. waxaanu aaminsan yahay inuu weli nool yahay. habeen uu roobdaayay wuxuu wiilka yar u baxay banaanka si uu qashin u soo daadiyo. laakiin intuu qashinka qubayay wuxuu arkay sumadda Nemesis. waxaanu sumadda ku bedelay sumadda Samaritan. waxaa halkaa ka soo baxay Joe Smith oo la jaar ah wiilka yar ee Sam. wuxuu goobta qashinka ku tuuray qashin. sidoo kale wuxuu qashinka kala baxay marwaxad xumaatay, waxaanu ku laabtay gurigiisii. Joe Smith waa nin aan qaraabo lahayn oo kaligii noolo ah. wuxuu u shaqeeyaa shirkadda qashinka. sidoo kale waa farsamayaqaan hagaajiya qalabka qashinka lagu tuuro, kadibna dib ayuu u iibiyaa. maalintii dambe Sam wuxuu ku soo laabtay guriga isagoo ka yimi iskuulkii, laakiin wuxuu arkay mulkiilayaashii guriga oo aqalka dusha ka xidhay sababtoo ah hooyadii baan bixin lacagtii kirada. Sam wuxuu iska fadhiistay guriga agtiisa. isla xilligaa waxaa gurigiisa ku soo laabtay Joe oo rikoodh xumaaday sita. Sam wuxuu weydiiyey Joe sababta uu sito rikoodhka xumaaday, laakiin Joe wuxuu weydiiyey sababta uu xidhan yahay saacadda xumaatay. waxaa Sam u yimi saaxiibka oo lagu magacaabo Chase. waxaanu ku yidhi soo raaca dad lacag rabto. Sam iyo saaxiibkii way israaceen, waxaanay guri ka soo xadeen wayrada waaweyn ee korontada. waxay geeyeen geerishka waxaanay ku iibiyeen $40. waxaa geerishka ay wax ku iibinayeen soo gaadhay nin burcada oo lagu magacaabo Cyrus wuxuu taageeraa Nemesis. waxaanu maamulaa burcad tuuga oo magaalada wax ka xada. Raza oo ah mid ka mid ah burcadda hoostaga Cyrus ayaa labadii ciyaal ku yidhi dukaanka xeebta u dhow alaab ma igala soo xadaysaan. Chase wuu diiday inuu raaco, laakiin waxa yeelay Sam. Raza wuxuu ku codsaday Sam inuu mashquuliyo mulkiilaha dukaanka ay wax ka xadayaan. Sam wuxuu gacanta iyo madaxaba iska mariyay kajabka cuntada, waxaanu iska dhigay qof dhaawaca. Raza iyo saaxiibadii waxay xadeen kartoomo badan intuu Sam mashquulinayay mulkiilaha dukaanka, waana yaaceen. waxay tageen meeshoodii waxaanay eegeen karatoontii, mise waxba ku jira jibis. waxay soo xadeen karatoon khaldan. Raza isla markiiba wuxuu ku cawaandiyooday ilmihii yaraa ee Sam. waxaanu ku eedeeyay inuu isagu mas'uul ka ahaa khaladka ay sameeyeen. Sam af ayuu isku difaacay, waxaanu u sheegay inuu kaliya sameeyay qorshaha ay u sheegeen. intaa kadib Raza wuxuu Sam ku tuuray dhulka. Cyrus wuxuu Sam weydiiyey da'diisa. wuxuu ka helay wiilka yar kartidiisa iyo kalsoonidiisa. waxaanu siiyey $200 halkuu dhanka kala garaacay Raza. waxaanu ugu yimi hooyadii mulkiilihii guriga weydiisanaysay inuu 15 cisho ay lacagta ku keento siiyo. Sam wuxuu lacagtii uu hayay siiyey hooyadiina waxay siisay mulkiilihii guriga. markii gurigii galeen waxay hooyadii Sam weydiisay halkuu lacagta ka keenay, laakiin been ayuu u sheegay. maalintii xigtay isagoo iskoolka ku sii socda waxa jidka u galay Raza iyo saaxiibadiisii. iyagoo garaacaya waxa ka soo gaadhay Joe, waanu ka qabtay. Raza wuxuu isku dayay inuu feedho Joe, laakiin gacantii ayaa xanuuntay jirkiisa adag awgii. sidoo kale wuxuu isir midi ka taag, laakiin gacantii buu ka jabiyey. kadib Joe wuxuu iskaga tegay meeshii isagoon hadlin. markuu arkay sida uu u dagaalamayo wuxuu halkaas Sam ku aaminay inuu ninkani Samaritan yahay. Sam wuxuu ku soo laabtay qolkiisii, waxaanu sheeda ka daawaday guriga Joe. waxaanu arkay in dhabarkiisu wada gubtay, waxaanu halkaa ku sii rumaystay inuu Samaritan yahay. Cyrus, saaxiibtii Sel iyo dhammaan asxaabtoodii kale waxay xidheen dharka askarta oo kale, waxaanay tegeen goobta ay boolisku cadeymaha ku kaydiyaan. ilaaladii goobtu waxay weydiiyeen kaadh aqoonsi, laakiin Cyrus ayaa dilay raggii ilaalada ahaa. asxaabtiisii kalena waxay jebiyeen khasnad kayd ahayd. Cyrus wuxuu helay koofiyadihii Nemesis iyo Samaritan. sidoo kale wuxuu helay dubbihii Nemesis. wuxuu dubbihii ku tijaabiyey albaab, waxaanu ogaaday inuu dubbuhu awood gaar ah leeyahay.
saam wuxuu markasta daba socdaa joe wuxuu ka codsaday saam inuu joojiyo dabagalka uu ku hayo. saam wuxuu daaqada uga dhacay gurigii joe wuxuu helay kitaab ay ku yaalaan warbixino la xidhiidha Samaritan waxaana uu qaatay gurigooda. joe markuu gurigiisa yimi wuxuu ogaaday in kitaabkii la xaday cid kalena aanay xadin uu saam xaday. wuxuu u tegay hooyadii waanu ka dacweeyey. hooyadii way uga qaaday kitaabkii waanay ka raali gelisay. maalintii xigtay saam wuxuu joe oo wadada maraya weydiiyey inuu Samaritan yahay iyo in kale, laakiin joe wuxuu u sheegay inuu isaguba taageere u yahay sidaasna warbixinadiisa u urursado. kadibna wadada u qaaday isagoo iska sii socda. Raza iyo asxaabtiisii ayaa si lama filaana gaadhigoodii u jirsiiyey. joe wuxuu ku dhacay dhulka waxaanu ka jabay laf kasta. saam oo ooyaya ayaa u soo dhawaaday, laakiin isla markiiba joe indhaha ayuu kala qaaday waxaanu kacay isagoo jirkiisii siduu ahaa ku noqonaya. saam waxa mar kale halkaa uga baxay inuu joe Samaritan yahay. intaa kadib wuxuu tegay gurigiisii waxaanu ku qabaystay biyo barafa waxaanu cunay ice cream qabow. saam wuxuu weydiiyey sababta uu u cunayo waxaan qabow waxaanu u sheegay inuu u baahan yahay inuu jirkiisa qaboojiyo markasta uu dhaawac soo gaadho. saam wuxuu weydiiyey inay tani sabab tahay dhimashada Nemesis. joe wuxuu ka codsaday saam inuu joojiyo ka hadalka Nemesis. Cyrus iyo kooxdiisii waxay dubihii u isticmaaleen inay magaalada ku argagixiyaan. wuxuu Cyrus qof kasta u sheegay inuu yahay Nemesis-ka cusub waxaanu dadkii oo dhan ku abaabulay sida u taageeri lahaayeen. maalintii xigtay waxayse soo raacay saam iyo joe siday u sheekaysanayeen. wuxuu joe ka ballan qaaday saam inuu saacadda ka xumaatay u hagaajin doono. saam saacaddii buu u dhiibay wuu u mahad celiyey waanu ka tegay. isla waqti xaadirkaas Cyrus wuxuu weli magaalada ka sii sameynayay rabshado badan isagoo isticmaalaya magaca Nemesis waxaana warkiisa meel kasta ku baahiyey warbaahinta. joe aad ayuu u xanaaqay markuu dhowr jeer maqlay magaca Nemesis. saam wuxuu ka codsaday joe inuu baro qaabka loo dagaalamo. joe wuu ka aqbalay. saam wuxuu isku dayay inuu feerka ku barto joe calooshiisa laakiin wuu dhaawacmay. mar kale saam wuxuu joe weydiiyey Nemesis laakiin joe wuu xanaaqay waxaanu ku yidhi bax gurigiinii qabo. isagoo saam sii socda waxa dhexda ku arkay siina qaaday Cyrus. markuu meeshoodii u raacay wuxuu arkay iyagoo gacantooda ku dilaya nin boolisa. saam wuu argagaxay waxaana go'aansaday inuu degdeg u baxsado. isagoo sii cararaya wuxuu arkay Raza oo garaacaya saaxiibkii Jace. saam wuxuu feedhay Raza waxaanu saaxiibkii Jace ku yidhi baxso. intaa kadib wuxuu Raza si xun u garaacay gacantana ka jabiyey saam waxaanu isagoo baralaatiya keenay gurigooda agtiisa. Raza iyo kooxdiisii iyo joe way is arkeen. joe wuxuu saam u qaaday hosbitaalka. Razana wuxuu madaxdiisii u sheegay in ninkii ay gaadhiga jirsiiyeen uu weli nool yahay. Cyrus wuxuu sheegay inay u keenaan ninka gaadhigiisa waxyeelay. waxay u istaageen joe dariiqa waxaanay bilaabeen inay la dagaalamaan. joe wuxuu ku kala tuuray midba meel xitaa xabad ayay u isticmaaleen laakiin waxba kamay tarin dhammaantoodna wuu garaacay. markuu joe leynayay nimanka waxaa arkaysay gabar yar waxaanay weydiisay siduu ku awooday. dadkii meesha kaag dhawaa waxay ku soo urureen joe waxaanay bilaabeen inay duubaan. si lama filaana nin ayaa bam ku soo tuuray joe agtiisa. joe wuxuu qabtay gabadhii yareed waxaanu ka dulbooday gaadhi waxaanu gaadhigii iska xigsiiyey bamkii waxaanu badbaadiyey gabadhii yareed inkastoo qarax weyn lala beegsaday. wax dhacdadii baahiyey dhammaan telefishinada iyagoo leh waxa soo laabtay Samaritan. warkaa markuu joe maqlay wuxuu go'aansaday inuu magaalada ka tago. Cyrus markuu daawaday muuqaalkii waxay isaga kooxdiisii tageen gurigii joe si ay u soo dilaan laakiin joe waxa uu ka baxay gurigii intaanay ku soo gaadhin. Cyrus wuxuu rasaas ku baabiyey qolkii kadib wuxuu daaqada ka arkay saam gurigoodii waxaana hore ugu sheegay Raza oo ku yidhi joe iyo saam wajaar. Cyrus wuxuu ku amray burcadiisii inay u soo qabtaan saam. saam wuxuu isku dayay inay isagiyo hooyadii baxsadaan laakiin waxay yaacaanba waxa qabtay Cyrus. isla xilligaa isagoo joe wadada tareen ku sugaya wuxuu arkay inuu isku soo ilaabay saacaddii saam. wuxuu ku soo laabtay gurigoodii si uu u siiyo. wuxuu arkay Tiffany hooyadii dhashay saam oo kijada ka ooyeysa waxaanay u sheegtay inuu Cyrus aftuubtay saam. joe wuu xanaaqay waxaanu foostooyinka waaweyn ee baatroolka ku kurtay baabuur xamuula waxaanu u jihaystay dhanka iyo meeshay Cyrus iyo kooxdiisu joogeen. Cyrus wuxuu damacsan yahay inuu burburiyo warshada korontada magaalada waxaanu doonayay inay magaalada oo dhan madoobaato si ay burcadiisu si fudud wax u boobto. wax yar kadib joe ayaa meeshii soo gaadhay. ugu horreyntii ilaaladu waxay isku dayeen inay gaadhiga xabad ku joojiyaan laakiin joe wuxuu gaadhigii jirsiiyey afaafkii dhismaha. saam ayaa arkay inuu joe yimi waxaana u sheegay Cyrus inuu isagana u dili doono siduu u dilay Nemesis. dhammaantood waxay isku dayeen inay xabadeeyaan joe laakiin si fudud ayuu u garaacay. waxaa soo degay Cyrus waxaanu sheegay inuu dhammaystiri doono hawshii uu Nemesis qabyada uga tegay. joe wuxuu ka codsaday inuu wiilka yar ee saam iska sii daayo laakiin Cyrus wuu diiday waxaanu joe ku dhuftay dubihii. joe dhulku ku dhacay Cyrusna wuxuu la sii dhacay dubihii. markastoo isiraahdo kacna wuxuu ku sii dhufanayay dubaha. markii dambe intuu joe kacay ayuu dubihii iska qabtay waxaanu u sheegay inaanu ahayn ninkii wanaagsanaa ee Samaritan ee uu yahay ninkii xumaa ee Nemesis. sida xaqiiqada ahna Samaritan wuxuu ku dhintay qaraxii Nemesisna wuu ka badbaaday. si lama filaana waxa uu qarxay gaadhigii uu joe qaraxa ka soo buuxiyey waxaana bartaa ku dhintay dambiilayaal badan oo ay ka mid tahay Cyrus saaxiibadii. intaa kadib joe wuxuu u ugaarsaday midhmidh
intii soo hadhay mar ayay ku soo wada urureen laakiin Joe wuxuu jabiyay tiir ka mid ah dhismihii waxaana ku soo dumay saqafkii guriga dhammaantoodna way dhinteen laakiin Joe wuu badbaaday waxaan u soo kacay dhanka Cyrus wuxuu Sam gacmaha kaga xidhay Tombo waxaanu kooxdiisii ku amray inay magaalada korontada ka jaraan magaaladii sidii u dhamayd waxay noqotay madow burcadiina waxay biliqaysteen magaaladii waxay gubeen dhismayaashii waxaanay jabsadeen bangiyadii Cyrus wuxuu xidhay qinaacii Nemesis waxaanu yeeshay awood dhismuhu sidoo u dhan yahay uu gubanayaa Samna wuu qaylinayaa gargaar baanu rabaa waxa maqlay Joe waxaanu isiri badbaadi waxa Joe xagga dambe kaga yimi Cyrus waxaanu qaatay dubihii uu ku dhuftay waxaanu bilaabay inuu la dagaalamo kulaylka daran ee meesha ka dhacaya awgii Joe waxa ku dhacay wadna xanuun Cyrus wuu sii garaacay waxaanu isiri ka toor dhismaha Sam wuxuu jabay qasabadii uu ku xidhnaa waxaanu Cyrus kaga dhuftay dhabarka Joe ayaa soo kacay wuxuu qaatay dubihii waxaanu cunaha kaga qabtay Cyrus wuxuu u qaaday kor waxaanu ka tuuray dhismihii isagoo dib xasuusanay qaabkii uu Samaritan u dhintay 50 sano ka hor Joe wadnihii baa sii xanuunay waxaanu ku dhacay dhulka Sam wuxuu furay qasabad u dhaweyd waxaana Joe rusheeyay biyihii qaboobaa dhismuhu wuxuu ku dhow yahay inuu qarxo Joe wuxuu ku dhigay Sam wuxuu ku soo booday dhismihii gubanayay dhismo u dhawaa waxaanu sidaa ku badbaadiyay Sam wuxuu weydiiyay inuu Nemesis yahay Joe wuxuu ku yidhi haa Sam wuxuu sheegay inuu noqday nin wanaagsan wanaagiisana sii wado Sam bannaankii buu soo baxay waxa ku soo ururay warbaahinta iyagoo weydiinaya waxa dhacay Sam wuxuu ku yidhi Samaritan ayaa badbaadiyay Samaritanna wali wuu nool yahay Joe wuxuu ku qoslay Sam wuu dhuuntay waxaanu ka baxay bridge hoostii